السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديد waxaan wadaa ogeysiis kaas wuxuu ku saabsan yahay sanadka cusub. Hadaba sanadka cusub maxaan idin wadaa? Number 1 waxaan wadaa koorso cusub oo u talagalay dadka bilowga ah oo beginnerska ah. Hadaba beginnerska maxaa u sameynayaa? Beginnerska waxaa la barayaa how to read and write. Farti iyo readingkii, pronunciationkii, alif ayaana loogu soo bilaabaa alfabeetada Ingiriiska la barayaa, vowelska la barayaa. waxaa la barayaa how to construct or build a sentence la barayaa bilowgaas ku soconaan buugaag kala duwan ayaana jirto caawin doonto safarkaas waa koorso cusub oo ugu talagalay ardayda bilowga oo luqadda rabaan hadda inay bilaawaan waa kow dadka horey ee ugu bilaawneed luqadii oo dhexdhexaadka ah ama ii sheeg wax u bilaawan yihiin oo u baahan inay hore usii wataana ayna koorso cusub ugu talagalay koorso maxay ku saabsan tahay reading badan la sameynaya akhris badan akhriska daba muxuu faa'iido u yahay akhris wuxuu faa'iido u yahay in carabkaada uu la qabsado erayada oo aysan ku adkaan dhawaaqooda si fudud oo erayada ugu dhawaaqo qofka markuu akhris badan sameeyo akhriska sidoo kale waxay ka caawinaysaa fahamka erayada sida loo isticmaalo ayaad baranaysaa akhriska sidoo kale wuxuu ka caawinaa maskaxda ayuu furayaa sheekooyin kala duwan waxyaabo kala duwan marka akhris waxaa noqonaysaa qof open minded ah wax badan fahmayo sidoo kale waxaan ka caawinayaa speakingka dad badan ayaa dhib ku qaban inay hadlaan haddaba hadalka iskama yimaado dadaal badan buu u baahan practice badan buu u baahan yahay waxaa ku baraya ama ku faa'iideynaya how to speak properly fluently number 1 pronunciationka laga saxay erayada isticmaalaysid number 2 practiceka sida aad u practice garan kartid iyo waxyaabaha u baahan tahay in aad si fluently oo very active aad ugu hadashid number 3 oo dadka wax u bilaaban yihiin waxaan barayaa listeningka waxaan ku akhrinaya sheekooyin akhrinaya ama ku daara cod ahaan waa dhageysanaysa kadibna su'aalaha lagu weydiinaya waxaa lagu leeyahay maxaad maqashay sheekada aad dhageysato maqashay su'aalaha laga weydiina waad ka jawaabaysaa iyana waa koorso xasuusnow koorsadaas waxay ku saabsan tahay reading akhris speaking hadal iyo listening oo dhageysiga ah intaasaan kaa caawinaa waa full course sida loo sameynaa processka everything waa idinla soo wadaagaya waxaana ugu talagalay dadka wax u bilaaban yihiin oo ii sheegay beginnerkana aan ahayn laakiin wax u bilaabin intermediate-na aan gaarin sidoo kale intermediate-ka dadka ah koorsadaas way ka faa'iidaysanayaan sidoo kale ardayda iskuulka dhigata ayna grade 6 ilaa grade 9 waxaa ayna u bilaabaa koorso cusub oo as how to write insha and how to write composition ayaa bari doonaa iyagana way u baahan yihiin arday fara badan ayaa waxay dhib ku qabaan writing composition sidoo kale iyo writing insha ayay dhib ku qabaan systemka Kenyana compositionka wuxuu ka mid yahay qayb ka mid ah Englishka waaye waana writing ku saabsan so if ardayga uu garan how to write waxaa laga bilaabaa grade 4 laga bilaabaa 5 6 7 8 9 wayna sii socotaa ina waxa waaye waa ku bara waa ka caawinaya waa koorso full oo sameynayna ardaydaas ayagoo iskuulaadkooda dhiganayaan habeenkii ama qaab tuushan ahaan lagu barayaa haddaba intaas waa ogeysiis waxaan ogeysiiska raacsanaya oo ila socda horta luqadan waa Englishka ah waxa weeye waa xirfad ama waa luqad hadba soo u taqaanid luqadan waxa lagu talagalay in communication